haddii aad tahay qofka cusub janalkan fadlan sabskraibta kilig sii gambaleelkana kilig sii ama furo si aad u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay ee aan soo gelino janalka kadibna personalize ku dhufo. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta waxaan micnaha idin tusayaa ama aan baranaynaa qaabka looga bixiyo softwareka computerkaada, qaabka windowska looga saaro softwarada adiga aadan rabin. okay, marka ma aha micnaha inaan sida kan oo kale aan right click intaan dhahno aan delete aan dhahayno mo kale ma aha. kan waa file caadi, laakiin markii software laga saarayo computerka waa isagana waa barnaamij kale, laakiin file markuu yahay right click aad leedahay, delete ayaad leedahay oo tirma kadib. okay, markii waxaan rabnaa marka software inaan ka saarnaa rabnaa marka laba qaab waad ku raadin kartaa. inaad micnaha start menu keliga asiisid waa dariiq dheer, kadibna aad tiraadid window system aad tiraadid, kadibna control panel aad tiraadid. wuu soo kacaya, waa kana wuu soo kacaya, waa sugaysa in yar. ama aad tirahdid halkan aad ku qortid control panel aad ku qortid co haddaa qortid dabcan waxaa laga yaabaa inuu soo saaro. waa kaasa co control panel, waa kan wuu soo saariyay. keligaad siinaysaa, kadib meeshaan uninstall program ayaad ku dhufanaysaa haddii aad rabtid inaad wax ka saartid computerkaada. marka hadda aniga waxaan ka saarayaa, hadduu ila yirahdo office-kan ayaan ka saarayaa. office shayga aad ka saaraysid dabcan adiga magaca ka saari doonta adiga ku taallaa, laakiin shayga aad ka saaraysid waxaad ku dhufanaysaa korkiisa intaad tagtaa click siinaysaa, kadib waxaad leedahay uninstall ayaad leedahay. in yar aad sugaysaa intuu ka install gareynayo. wuxuu ku weydiinayaa user account controlka ayaa soo kacayo, kadib waxaad leedahay yes aad leedahay haddii aad rabto inaad ka saartid. waad sugaysaa marka ilaa uu ka dhameynayaa sugaysaa. markii oo dialog boxkan markuu kusoo boodo uninstall ayaad leedahay, waa confirm gareynaysaa, waad sugaysaa marka ilaa uu ka saarayo. hadda waa uu noo dhameeyey installation close ayaad leedahay. marka sidaas hadda waa uu ka baxayey softwarekii computerka waa uu ka baxayey. marka waxaad leedahay start buttonka click siinaysaa. okay, hadda waa kan waa ujeedaa wax la yiraahdo Microsoft Office kuma jiro bes. midkan oo ah Office-kan waa wuxuu la socdaa Windows-ka la socdaa, waana website ahaan waa maana software ma aha. micnaha website ahaan ayaa u gelaysaa, account ayaa ka samaysanaysaa, web ahaan ayaa u isticmaalaysaa, laakiin ma aha Microsoft Office-ka caadiga ah ma aha. waa kaasa. marka barnaamijkeeni cashirkeen intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. walaal, haddii aad qabtid wax su-aala ama aad codsanaysid software in wax laga fahamsiiyo ama wax lagaa tuso, fadlan noogu soo qoro halka hoose ee videoska hoostiisa qeybta description-ka ama qeybta description-ka ee commentiga lagu qoro. markaas waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan ka jawaabno su-aashaada ama codsigaada hadduu ilaah yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.